toddobaad ka hor qalinjabinta Sichen wuxuu la kulmay Ting-ji si uu ula wadaago laba war oo muhiim ah. marka hore wuxuu weydiistay dheeri ah toddobaad oo ku saabsan deyntiisa sababtoo ah inuu kaalinta koowaad ku xiran yahay imtixaanadiisa waxay ka dhigtay inuu seegay abaalmarinta lacageed ee buuxda taasoo ka tagtay 5 eber oo ka short ah. si kastaba ha ahaatee dhibaatadan lacagu ma ahan mid la barbar dhigi karo warkiisii labaad kaasoo aad uga cuslaa. wuxuu daaha ka qaaday inuu dhab ahaantii ka soo laabtay 1 eber sano oo mustaqbal ah isagoo sharaxaya in koox boqorro jinniyo ah oo xooggan ay ugu dambayntii baabi'in doonaan adduunka iyagoo isaga ka dhigaya halyeyga keliya ee nool. Sichen ayaa markaas sharaxay sida masiibadu u bilaabatay isagoo sheegay in boqorkii jinka ee ugu horreeyey Urat uu isticmaalay hirar tamar waxyeello leh si uu dhulka u kala jeexjeexo. wuxuu sii sharaxay in halyey cusub oo magaciisa yahay Ting-ji uu soo baxay si uu baniaadamka u badbaadiyo isagoo sameeyey oo u deeqay qalab difaac gaar ah oo loo yaqaan Steelstone. mahadnaq lacagtan baniaadamku waxay u adkaysteen hirarkii dilaaga ahaa ee Urat taasoo siisay badbaadiyaasha wakhti ku filan si ay xooggooda u ururiyaan oo ay dib uga hortagaan. markuu maqlay Ting-ji wuu istaagay isagoo naxsan sababtoo ah inkastoo Steelstone loo sameeyey si uu u xanibo sixirka hirarka qalabka hadda wuxuu ahaa mid aan weli la wadaagin oo keliya fikrad ku jirta madaxiisa taasoo caddaynaysa in Sichen run sheegayo. Sichen islamarkiiba wuxuu ku martiqaaday Ting-ji inuu ku biiro kooxdiisa oo uu u shaqeeyo. Juun 26 kadib markii uu helay dhammaan lacagtii deynta Ting-ji wuxuu si farxad leh ugu soo celiyey bukkii Sichen gudaha qolka kaydka ee Mitril Exkange. si uu u daboolo ribada Sichen waxa uu ka soo saaray bakteeradiisa bacyar oo ka kooban walxo naadir ah isagoo miiska ku soo tuuray qalab qiimo leh sida lugaha quraaradaha sunta ah madaxa mantis iyo xameeti abeeso oo naadir ah. Ting-ji wuu ku faraxsan yahay walxaha tayada sare leh wuuna ammaanay saaxiibkiis laakiin Sichen si fudud ayuu uga baxay isagoo sharaxaya inuu ku degdegay oo uu keliya qabsaday waxyaalahan yar. Ting-ji ayaa markaas weydiiyey sida uu u socdo qoritaanka guildka Black Raven. Sichen wuxuu u sheegay Ting-ji in musharaxii ugu sarreeyey uu diiday dalabka. warkan waxa uu ka yaabiyey Ting-ji kaasoo u malaynayay in guuldarradani ay hakiso qorshihii Sichen ee u guurista Sanhaf. si kastaba ha ahaatee Sichen wuxuu sheegay inuu dhab ahaantii degdeginayo jadwalkiisa isagoo sharaxaya in qorshihiisa uu ahaa 3 weji. wejigii koowaad wuxuu ahaa mid fudud inuu ka dhiso guild cusub oo heerka bilowga ah koox yar. wejigii labaad wuxuu ku saabsanaa kor u qaadista guildka heerka dahabi ah si loo helo ogolaansho lagu tartamo Dungeons heerkas. ugu dambayntii wuxuu qorsheynayay inuu tago Sanhafen helo Dungeonka ay ku jirto boqorka jinka Urat oo uu goor hore ka adkaado. laakiin dhacdooyinkii dambe waxay burburiyeen xisaabtiisa. Sichen wuxuu uga digay Ting-ji in Urat laga yaabo inuu horay u soo muuqday wax ka badan sidii noloshii hore. sidaas darteed waa inuu islamarkiiba gaadho Sanhafen oo uu qorolo saaxiibo markuu yimaado taasoo Ting-ji ka tagtay mid la yaaban ka kanaanta xaaladda. isagoo doonaya inuu caawiyo Ting-ji wuxuu gacanta geliyey jeebkiisa wuxuuna soo saaray qalab yar oo muusig ah isagoo rajaynaya in diyaarintiisa degdega ah ay isbeddel ku noqon karto. wuxuu sharaxay in saaxiib uu leeyahay oo wax soo saara uu sameeyey heeso caan ah oo lagu dhejiyey mawjad betagaar ah xataa wuxuu helay shuraako heesaha caalamiga ah Michael Bruno. qorshuhu wuxuu ahaa in fanaanku uu soo saaro heesta sidii hal gabay isagoo ku faafinaya mawjadda adduunka oo dhan wax ka yar 7. wuxuu sharaxay in tan iyo markii mawjaddani ay baabiin karto hirarka maskaxeed ee Urat baahinta heestu tahay habka ugu waxtarka badan ee difaaca muddada gaaban. Sichen wuxuu la yaabay sida saaxiibkiisu ugu diyaariyey difaac caalami ah 7 gudihiis halka Ting-ji uu keliya hagaajiyey muraayadihiisa isagoo ku faanaya inuu ka caawiyey ka hortagga masiibada. ka hor intaan Sichen si buuxda u fahmin guushan weyn Ting-ji wuxuu soo bandhigay yaab kale. isagoo isticmaalaya giraantiisa kaydinta Ting-ji wuxuu soo saaray saacad casri ah oo ku dhigta ururka Sichen isagoo sharaxaya inuu u dhisay si ay u raadraacdo khataraha heerkas iyo meelihii hore ee ay joogeen. wuxuu si kibir leh u sheegay in tusaalahan gaarka ahi uu noqon doono qalabka ugu weyn ee loo adeegsado ugaarsiga Urat ka hor intaysan duulaanku bilaaban. Sichen waa la yaabay markuu arkay in raadraacaha uu ka fiican yahay nidaamkiisa. markuu gartay in saaxiibkiis cusub yahay caqli badan oo dhisay qalab raadraac ah 7 gudihiis Ting-ji wuxuu qirtay inuu jeclaan lahaa inuu lahaado awoodda dagaalka ee Awakener si uu dagaal ugu soo baxo. Sichen si dhaqso ah ayuu u qalbi qaboojiyey isagoo u sheegay in caawimadiisa teknoolojiyaddu ay tahay mid aan qiimo lahayn wuxuuna u ballan qaaday inuu dagaalka keligiis qabto. si kastaba ha ahaatee Sichen wuu feejignaaday isagoo og in Urat uu yahay keliya horjoogaha duulaanka wuxuuna go'aansaday inuu ururiyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan boqorka jinka. xalintii dambe gudaha cisbitaal Roble Jinduan oo ah wiilkii kharibana ayaa lagu xidhay qol buufin ah isagoo candhuuf ka daadanaya sababtoo ah sixirkii Sichen. inta aabihiis cadhaysan Ronald Jin uu daawanayo ninkii duuga ahaa wuxuu dalbaday inuu ogaado cidda ku dhiiranay inay jebiso sharafka qoyskiisa oo ay kharibto wiilkiisa. kadib wuxuu amray koox ka kooban Awakener iyo heerka ah oo ugu sarreeya si ay u baadi goobaan cidda u sababtay iyagoo u hanjabay inay bixin doonaan
markay aqbaleen shaqada, hogaamiyihii dilayaasha ah wuxuu soo bandhigay mindi iftiin leh oo ku dhex qarsoon dalladiisa, isagoo si kalsooni leh u ballan qaadaya inuu soo celin doono madaxa cidda u sababtay maanta. Si kedis ah, cadaadis culus ayaa qolka ruxay, isagoo maamulaha ku ridaya jilbaha isagoo mategaya xanuun. Inta tallaabooyin culus ay dhulka ka ruxayaan, askartii dilayaasha ah waxay dareemeen joogitaan xoog leh oo si toos ah ugu soo socda. Markuu xayawaankii soo dhowaaday albaabka, ugaarsadayaashu waxay diyaariyeen awoodahooda iyo qoryahooda, iyagoo isu diyaarinaya dagaal. Si kedis ah, jinkii wuxuu ka soo muuqday qolka dhexdiisa, isagoo dhoola cadaynaya oo sheegaya inay tahay wakhtigii uu quudi lahaa, isagoo daaha ka qaaday inuu yahay Foreus, boqorka jinka ee Hungriga. Awoodaha Awakenerku waxay u qaybsamaan 5 fasalo oo waaweyn. Waxaa ka mid ah dagaalyahanka, kaasoo loo dhisay inuu hogaamiyo weerarka oo uu qaado dhaawacyada culus ee safka hore. Kadib waxaa yimaada fasalka dilaa, kaasoo ku tiirsan xawaaraha si uu u soo weeraro cadowga oo uu u dhammeeyo si dhaqso ah. Kadib waxaa jira saaxirka, kaasoo ku takhasusay kontaroolka goobta dagaalka iyo samaynta waxyeello sixir ah oo culus meel ammaan ah. Kuwaas waxaa taageera fasalka heesaaga, kaasoo kooxda sii haysta nolol iyadoo ka saaraya saamaynta xun iyo kor u qaadaya tayada qof kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fasalka 5aad ee u dhexeeya oo si buuxda u gooni ah, isagoo ku shaqaynaya falsafad gaar ah. Fasalkan weerarka ah ayaa si buuxda uga tegaya difaaca, isagoo ku beddelaya ammaankiisa awoodda waxyeellada ugu badan ee nidaamka oo dhan. Sichen wuxuu ku soo degay moolalka foolkaaneed ee dabaqa 2, isagoo diyaar u ah inuu wajaho maamulihii Dreadspeare, xayawaan leh awoodda fasalka iyo weerarka fog. Inta uu ka dhuumasho leydhka blasma ee godka foolkaaneed, Sichen wuxuu raadraacay jihada rasaastii ugu dambaysay si uu u helo meesha qarsoon ee bisadaha. Wuxuu garanay in inkastoo weerarada fog ee maamuluhu ay aad u xoog yihiin, haddana wuxuu u baahan yahay inuu dib u soo celiyo inta u dhexaysa rasaasta, taasoo siinaysa fursad kooban oo uu ku weeraro ka hor intaan daba kicin meel fog. Isagoo ka faa'iidaysanaya fursaddiisa, Sichen wuxuu ku soo booday mindidiisa dembiyaha ah, isagoo diyaar u ah weerar degdeg ah oo kama dambays ah si uu u baabi'iyo xayawaanka. Laakiin waxay ahayd mid ka soo hartay. Si kedis ah, xayawaanku wuxuu soo saaray iftiin keentay qarax weyn. Sichenna wuu ka soo kacay sariirtiisa isagoo neefsada, isagoo ka soo laabtay tawarka diimaha. weli wuu gariirayaa, ma uusan iska celin inuu habaariyo xayawaankii khiyaanada badnaa. Markuu fidsaday habeen dheer, Siyun waxay heshay walaalkeed oo ku sugan sariirta hoose isagoo u eg qof dhintay, halka Leo oo yar uu ku hurdaa laabtiisa. Waxay weydiisay hadduu wax hurday. Sichen wuxuu qirtay inuu habeenkii ugaarsanayay oo uu la kulmay dhibaato culus. Markay weydiisay waxa uu ugaarsanayay, si dhaqso ah ayuu uga baxay su'aasha, wuxuuna u sheegay inay ilaawdo. taa beddelkeeda wuxuu u beddelay mawduuca guurkooda soo socda, isagoo u sheegaya qorshihiisa ah inuusan hafeen tago dhowr maalmood gudood kadib markay soo bandhigaan xusuusta sannadlaha ah ee waalidiintood toddobaadka soo socda. Siyun waxay la yaabtay sababta uu u baahan yahay inuu goor hore baxo, laakiin wuxuu sharaxay inuu doonayo inuu hore uga tago si uu u diyaariyo gurigooda cusub. Hoosta wuxuu og yahay inuu ku degdeginayo qorshihiisa si uu ula socdo masiibada soo socota. Markuu arkay walaashiis oo si farxad leh ugu dhegan xayawaanka yar, wuxuu dareemay nasasho, isagoo og in Leo uu joogi doono si uu u difaaco, taasoo ka dhigaysa kala tagooda ku meel gaarka ah mid sahlan. Si kastaba ha ahaatee, hal cillad khatar ah ayaa weli ku culus maskaxdiisa. xaalado gaar ah, xiriirkiisa maskaxda ee Leo go'a. Wuxuu xasuustay sida xiriirka uu la aamusay markii albaabkii ku soo xirmay gadaashiisa meesha ugu qoto dheer ee Dungyeon ka duur joogta ah. xiriirka maskaxdu wuxuu soo laabtay oo keliya kadib markii uu si guul leh uga adkaaday maamulihii oo uu ku qasbay in albaabada Dungyeon kadib u furmaan. Ciladan ayaa qaboojiyey, gaar ahaan markuu ka fiirsaday sida uu u dhowaa inuu ku guuldaraysto intii uu badbaadinayay Siyun. Haddii guulihiisa maamulaha ay ku hakato xataa nus daqiiqo, qorshihiisa wuu burburi lahaa, walaashiis iyo saaxiibkeedna way dhiman lahaayeen gacantii tuugada. Ka hor inta uusan safrin, Sichen wuxuu weydiiyey walaashiis hadduu amaahsan karo Leo safarkiisa San Hafen. dalabkan kediska ah wuxuu ka yaabiyey Siyun iyo xayawaankii yaraba. Adduunkan, Dungyeonsku waa kuwa naadir ah oo aad loogu tartamo, sababtoo ah nadiifintoodu waxay soo saartaa khayraad aad qiimo u leh. Sababtaas awgeed, dawladdu waxay iibisaa xuquuqda nadiifinta Dungyeonska la helay, taasoo ka dhigaysa meelaha heerka sare ah dagaallo lagu bido milyan oo dollar. Guildiyada hodanka ah ee elite ka ah waxay si dhaqso ah ugu bidaan lacago badan si ay u soo ururiyaan dhammaan Dungyeonska heerka sare ah. Inta ciyaartoyda waaweyni ay qabsadaan meelaha ugu fiican, hadaagii heerka hoose waxaa loo daayaa dadweynaha, taasoo kooxaha madax bannaan ee aan guildiyada lahayn ku qasban yihiin inay u dagaalamaan hadaaga. Gudaha mid ka mid ah xafiisyada heerka dhig, hogaamiye koox yar ayaa ka cabanaya inay si dhib ah ugu guulaysteen shatigad heer. Inkastoo saaxiibkiis uga digay inuu ku faraxsanaado maadaama ayan shaqo helin bilo si ay u buuxiyaan liiskooda, hogaamiyuhu wuxuu u diray qoraa si uu uga shaqaaleeyo dagaalyahan duulaankooda soo socda.
maadaama xeerarka dowladdu ay si adag uga mamnuucayaan in la galo Dungeons in ka yar 2 qof. Awakeneryada aan ku biirin guildiyada saxda ah waxay ku soo ururaan suuqyada maxalliga ah si ay u sameeyaan kooxo ku meel gaar ah oo quus ah si ay uga badbaadaan. Suuqa Tanaka Daiki oo ah heesaagan heer oo quus ah ayaa u soo bandhigay koox ka mid ah xirfadiisa taageerada. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii shaqo qorista ahayd ee sita birta fiiqan ayaa isla markiiba iska riixday iyadoo ku qaylisay inay rabto oo keliya dagaalyahan oo aan u baahnayn fasalka taageerada ee daciifka ah. Markuu dhex maray qalalaasaha, Sichen wuxuu garanay in habka keliya ee lagu hubiyo badbaadada walaashiis uu yahay inuu loo geeyo Dungeon si uu u helo khibrad dagaal oo uu kor ugu qaado heerkiisa. Maadaama guildkiisa cusubi aanu lahayn wax xuquuq ah oo Dungeon ka ah, towarkiisa gaarka ahna uu aad ugu khatar badan yahay xayawaan yar, waa inuu helaa koox suuqa shaqo qorista dadweynaha. Isagoo xiran muraayado isagoo isticmaalaya magac been abuur ah oo lagu yidhaahdo Ashtonle, isagoo iska dhigaya ee heer Stellar Tamer, wuxuu iska diiwaangeliyey isaga iyo Leo oo koofiyad xiran, diyaar u ah inuu ku dhex milmo ardayda cusub si uu u helo boos kooxeed. Asxaabta, wad ku mahadsan tihiin sida quruxda badan ee aad 3 kun noogu dhawaysan, waxaana aan rabaa in aad maanta kala baxdan Team Colorists iyo Team Wiilka Miyaarada. Kommentiga ugu leegta badnadana waa ka guulaystay, hana naga ilaawina like iyo subscribe waa ino iyo muuqaalka kan xiga.